kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qaybteena baahinta aroornimo waxaynu ku eegi doonaa xoutiyiinta dalka Yemen oo digniintii ugu dambeysay soo saaray gantaalada nooca ridada dheer ayay diyaarsadeen dhinaca Soomaaliland ayay ku wajahan yihiin waxaan idin soo gudbin doonaa xog iyo macluumaad ku saabsan waxa mar kale keenay in xoutiyiinta Yemen ay u soo hanjabaan hogaanka Soomaaliland macluumaad dheeraad ah xagee ayaa bartilmaameed u ah oo imikan ay shaaciyaan macluumaadka oo dhameystiran ayaan farta ka saaraya daawada muuqaalkan ila sii joog wax kale oo aan halkan ku eegi doonaa waan idin soo gudbin doonaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay imikan ku dagaalameysaa fagaarayaasha caalamiga ah imaaraadkii ayaa imikan yaaban maxaa tallaabo dawladda Soomaaliya ee imikan qaaday kana yaabiyay dhinaca imaaraadka carabta dadaaladii ugu dambeeyay ee diblomaasiyadeed oo imikan soconaya ayaan rabaa inaan halkan idin kula wadaago soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiinna aroori suuban ayaan idin leenahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan haddii aad nagu cusubtiin ku soo biira barta YouTube channelka aad naga daawanaysaan ee Warsan News si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran halkan ka hela warar warbixino muuqaalo aynu had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya hela xogaha iyo macluumaadka dheeraadka ah ee aan halkan idin kula wadaagi doono aragtidaada qaybta faalada ayaad ka soo dhiiban kartaa share garay muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada si ay kula daawadaan like-tan ha ka iloobin hagaag aan ku bilaabo xoutiyiinta ka dagaalanta dalka Yemen ayaa digniintii ugu dambeysay waxa ay siiyeen hogaanka Soomaaliland waxaana ay sheegeen in ay rakabteen gantaalada nooca ridada dheer waxayna faahfaahin rasmi ah ay ka bixiyeen halka rasmiga ah ee bartilmaameedka u ah warbaahinta maxalliga ah ee Yemen ayaa tabisay saacadihii ugu dambeysay in xoutiyiinta Yemen ay imikan gudbiyeen fariintii ugu dambeysay oo hanjabaad ah oo toos lala wadaagay madaxtooyada Soomaaliland gaar ahaan xafiiska madaxweyne Cirro loona sheegay in digniintii kol hore loo siiyay ahayd in ay ka waantoobaan la macaamilka Israa'iil ay imikan toos u sii laba jibaareen taas bedelkeedana ay xoutiyiinta ay ka bixin doonaan jawaab degdeg ah waxaana xoutiyiintu Yemen oo ay sheegtay in duulaan toos ah oo qaawan looga soo qaadayo dhinaca Soomaaliland oo ay sheegeen in nabadgelyadii amniga iyo xasiloonidii halka ka jirtay khatar weyn ay ku tahay Israa'iil waxaana ay sheegeen in goob iyaga lagu bartilmaameedsanaya amaba aag iyaga laga soo weerarayo ay magangeli ahaan u siinayso Soomaaliland Israa'iil oo ay ishayaan waxa ay sheegeen isla markaana ay qeexeen inay toos u bartilmaameedsan doonaan goob kasta oo lagu tuhmo inay ku sugan yihiin xubnaha sirdoonka Israa'iil oo Soomaaliland la sheegayo in qayb ka mid ah imikan ay ku sugan yihiin waxa si gaar ah loogu cayimay inay bartilmaameedsan doonaan goobta sida rasmiga ah looga dhisayo saldhigga military ee Israa'iil ka sameeysanayso ee berbera oo la sheegay in xubno sirdoon si qarsoodi ah halkaas ay ugu sugan yihiin waxa kale oo ay xoutiyiintu Yemen ay shaaciyeen in madaxtooyada xitaa ay bartilmaameed u tahay oo uu ku sugan yahay Cabdiraxmaan Cirro amaba uu ku shaqeeyo waxaana xoutiyiintu Yemen ay sheegeen in wixii ka dhasha oo ay bartilmaameedkooda ku aadan ay mas'uuliyadooda qaadi doonaan hogaanka Soomaaliland oo ay sheegeen in ay shacabka halkaas u horseedeen dhibaato adag oo aysan mudnaan in xilligan la geliyo xoutiyiinta Yemen ayaa ugu dambeyn waxay bulshada deegaanada maamulka ka jira ee Soomaaliland ugu baaqeen inay foojignaan dheeri ah muujiyaan taxadar badanna ay sameeyaan sida lagu qeexay isla markaana ay soo baahisay warbaahinta maxalliga ah ee Yemen macluumaadka dheeraadka ah ee hanjabaadan waxa ay sheegaysaa inay aad u gilgishay madaxtooyada Soomaaliland oo xilligan u aragta in khatar weyn oo aysan xamili karin imikan ay ka soo wajahayso dhinaca iyo xoutiyiinta Yemen warku waxa uu intaas uu ku dareeyaa in xoutiyiinta Yemen ay si toos ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada isdaba jooga ah ee Israa'iil ay ka sameynayso deegaanada Soomaaliland isla markaana ay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeysay socdaalka imikan ee Tel Aviv Cabdiraxmaan Cirro iyo si la mid ah inay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada xubnaha sirdoon ee Israa'iil ay ka sameynayaan Soomaaliland waxay sheegeen inay rakibteen isla markaana gantaalada nooca dheereeyada ay u adeegsan doonaan weerarkooda ku wajahan dhinaca Soomaaliland ee ka dhanka ah Israa'iil oo imikan xiriir toos ah ay la leeyihiin
Somaliland ayaa laba jibaartay marka la eego xiriirka Israa'iil ay la leeyihiin waxaase ay tusaale u noqotay safarada isdaba joogga ah ee Tel Aviv ku tagayaan xubnaha Somaliland iyo safarada ay ku imaanayaan Hargeysa xubnaha Israa'iil oo walaac xooggan ku abuurtay Xuutiyiinta Yemen ee ka dagaalanta ayaa dagaal adag kula jira kooxdan la yiraahdo Yuhuudda ama xubnaha Israa'iil iyo Yuhuudda dagaal adag kula jira waxna ay sheegeen inay ku bartilmaameedsan doonaan goob kasta waxaase dhowr jeer oo hore la arkay in Xuutiyiinta oo fariimahan jabaada dalalka caalamka qaarkood u diray isla markaana bartilmaameed toos ah ka dhigtay ugu dambeynna dalalkii ay bartilmaameedsadeen ayaa waxa ay iyana ay gabi ahaanba ay baabiyeen wax kasta oo diidma ahaa ee Xuutiyiintu ay ka bidiidsanayeen shacabka deegaanada Somaliland imikan waxay wajahayaan cabsi iyo walwal xooggan oo ka dhalan karta tallaabooyinka imikan ay sheegeen inay qaadi doonaan Xuutiyiinta ee ku wajahan dhinaca Somaliland oo walaaca si laba jibaaray dhawaan afayeenka Xuutiyiinta Yemen ka dagaalanta ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska dhexmaray Somaliland iyo Israa'iil oo uu ku tilmaamay in ay tahay heshiis munaafaqad leh oo Abdulrahmaan Cirro uu ka shaqeynayo danaha Israa'iil amaba Yuhuudda oo uu ka fogaaday guud ahaanba danaha islaamka sidoo hadalka u dhigay waxaase afayeenka Yemen ee Xuutiyiinta ka dagaalanta halkaasi hanjabaadii ka soo baxday oo ay madaxtooyada Somaliland dhagaha ka fariisatay markan ay noqonaysaa digniintii ugu dambeysay oo toos uga timaada dhinaca Xuutiyiinta Yemen ee loo diro Somaliland markan haddii aynu eegnana wararkeena kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa laba jibaartay dadaaladeeda diblomaasiyadeed iyadoo oo saaxadda caalamka kula dagaalamaysa Imaaraadka Carabta oo aynu ogeyn in gabi ahaanba ay ka saartay saaxadda siyaasadda gabi ahaanna baabi'isay nooc kasta oo heshiis oo dowladda Soomaaliya Imaaraadka Carabta ka dhaxeeyay waxaana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xubno ka socda ay u kala dirtay dalalka caalamka gaar ahaan kuwa ay ishayaan Imaaraadka Carabta waxaana wafdi ka socda dowladda Soomaaliya uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed imikan ay ku sugan yihiin Pakistan oo ay gaareen halkaas oo ay si toos ah uga bilaabeen kulamo u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowladda Pakistan oo looga hadlayo iskaashiga labada dhinac waxaana suurtagal ah in la saxiixo iskaashi dhinaca difaaca iyo isu soo dhawaanshiyo la xiriira labada dowladood Pakistan waxay aad u soo hayaan marka la eego Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil oo xiriir wanaagsan uu san ka dhaxaynin waxaase socdaalka Pakistan ee dowladda Soomaaliya xubnaha ay u dirtay ku soo aaday xilli India ay ku sugan yihiin xubno Imaaraad ah oo hogaaminayo boqorka Imaaraadka oo halkaasi uu ka karkarinayo arrimo la xiriira dadaalkiisa diblomaasiyadeed dowladaha caalamka ayaana lagu loolamayaa imikan dhinaca kale waxa qadar ku sugan oo ay Imaaraad ishayaan wafdi hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halkaasna waxa uu ku saxiixay wasiirka gaashaandhigga heshiis difaac oo iskaashi ah oo labada dowladood dhexmaraya Imaaraadka ayaana arintan aad uga yaaban oo caro xoogan ayaysa ku abuurtay macluumaadka soo baxay waxay sheegayaan in Imaaraadka saaxadaha caalamiga ah ee dhinaca diblomaasiyadda markan ay dowladda Soomaaliya kula loolamayso waxay sheegeen in dowladda Soomaaliya awoodii ay ka filanayeen mid ka badan ay la soo baxday imikanse way qorsheynayeen dibandaaboyin ka dhan ah madax banaanida Soomaaliya imikan ay u muuqdaan kuwa dib u gurasho ka sameyn kara tallaabooyinkii ay saacadii ugu dambeysay sameeyeen Imaaraadka Carabta waxayse u muuqataa mid dowladda Soomaaliya kala furfurayso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar buuxda ku siiyay wasiirkiisa arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya inuusan salka dhul dhigin oo uu ku baxo dadaalada diblomaasiyadeed ee Imaaraadku sameynayaan kana hortago abaabulka qorsheysan ee Imaaraadka Carabta oo madaxweynuhu sheegay in halis weyn oo ku soo foogan Soomaaliya ay tahay iminkana ay tahay in laga hortago Imaaraadka waxa la rumaysan yahay in uu buuq iyo qalin u wato oo leenta in aqoonsi la siiyo Somaliland isla markaana uu caro siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda uu ka qaaday go'aankii toddobaad ka hor ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo guud ahaan lagu baabi'iyay nooc kasta oo heshiis oo dowladda Soomaaliya kala dhaxeeyay Imaaraadka Carabta Imaaraadka sasaanadiisii ciidan ee ka tiilay gudaha Soomaaliya iyo gabi ahaan barartay Muqdisho Boosaaso iyo Kismaayo iyo Berbera ayuuna qayb ka mid ah agabkii military ee ka yeelay uu imikan qaatay oo si toos ah kala baxay Imaaraadka waxa uu qorsheynayaa in 72 saac ay soo aadan uu ku dhawaaqo warar waaweyn ah oo gilgili doona guud ahaan
dalalka geeska Afrika dhaca oo si toos ah uu tallaabooyinkan uu u qaadi doono waad ku mahadsantihiin ilaa gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen daawadayaasheena qiimaha badano waan idinkaga mahadcelinayaa malaayiin jeer ayaana mar kale idin leeyahay warkan midkiisa xiga intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo